waad ku mahadsantahay inaad soo booqato fadlan subscribe noo saar si uu gaalo kanaalkeena soo jirnay tafsiirkii suuratul jumuca waxaan soo gaarnay aayadda shanaad allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku ceebaynayaa aayaddan yahuudda waxaa lagu kallifay kitaabkii ilaahay nebi muuse u soo dhiibay oo towraad ahaa inay xambaaraan macnaheeda waxa weeye inay kitaabkan bartaan kuna dhaqmaan oy kitaabka qaadaan ma ahan inay dusha saartaan waa inay kitaabkan inta macnihiisa fahmaan ay ku dhaqmaan oo ay ku camal falaan waxa kitaabka ku sugan kadib kitaabkii waxay noqdeen inay un alfaadiisa xifdiyaan oo bartaan laakiin aysan kuba dhaqmin bal ay markii dambe alfaadii xataa bedelaan qaar ka mid ah macnihii dhaqankiina ay kaba tageen ilaahi weynaa subxaana wa tacaala taasuu marka ku ceebaynaya taasna macnaheeda waxay tahay ayagii waxaa lagu shabahay dameer oo kale kutubo waaweyn sida dameer haddii kutubo waaweyn la saaro muxuu ka faa'iidayaa culaysuu ka faa'iidaya haddii dhagax la saare haddii kitaab la saaro miyuu kala duwan yahay uma kala duwna haddii kitaab la saaro iyo haddii dhagax la saaro uma kala duwna kaliya wuxuu ka faa'iidayaa waxa weeyaan dameerku waa culaysuu ka faa'iidaa haddaba qofkii marka kitaabkii waxa weeyaan xifdisan oo alfaadiisii haya laakiin macnihiisii aan garanayn waxa weeyaan wuxuu ka faa'iidayaa cuquubo ilaahay agteeda ah oo xujo inay ku noqoto intaas ayuu ka faa'iidayaa laakiin wax kale uu ka faa'iidaya mare taasaa marka ilaah ku ceebaynaya subxaana wa tacaala annagana marka taas waxay noo tahay digniinna lakaga digayo oo nala leeyahay ayagoo kale ha isku noqonina yahuud waxaa ilaahay weynaa ku ceebeeyey oo lagu nacay waxay tahay kitaabkii inaysan macnihiisii aysan ku dhaqmin haddaba marka qof kasta oo kitaabkii dambo alla soo dejiyo yidhaahda lafdigiisaan xifdinaa laakiin macnihiisa waxba kalama ugama dhaqmayo dee waa dariiqaasuu noqonaa marka dariiqaasuu noqonaa haddii kitaabka alfaadiisa la xifdiyo korka laga yaqaan la iskaga subxiyo markii xoogaa qof xanuunsado layidhaha lagu aqriyo laakiin wax dhaqana aan la soo qaadin kitaabkii ee kitaabka caqiiduu ka hadlaya ee caqiidadii uu xambaarsanaa aan lagu dhaqmin kitaabka axkaamuu ka hadlaya salaaduu ka hadlaya sakuu ka hadla soomuu ka hadla xajuu ka hadla jihaaduu ka hadla axkaamuu ka hadla waxa weeyaan mucaamalaaduu ka hadla axkaamtiisiina aan lagu dhaqmin oo waxa weeyaan taas waxay la mid tahay dariiqadii yahuudda ilaahay ku diiday taasay la mid tahay ilaah wuxuu yidhi subxaana mathalu ladiina kuwii tilmaamtooda xumiluu la xambaarsiiyey atawraata tawraat waxa weeyaan xumiluu waxaa laga soo qaatay min alxamaalati bimacna alkafaala waa lagu kallifay wey macnaheedu min alxamaalati bimacna alkafaala aa laga keenay waxa weeyaan waa lagu kallifay oo waxaa la yidhi kitaabkan barta ku dhaqma ilaah wuxuu yidhi subxaana uma markii lagu kallifay ka gadaal lam yaxmiluuhaa maysan xambaarin oo kitaabkii kumaysan camal farin haddaba ka mahalilximaari dameer ayay la mid yihiin dameerkaasoo yaxmilu sida asfaaran kutubo waaweyn asfaar waa jamcu sifrin sifriga waxaa la idhaha kitaabka weyn kutubo waaweyn haddii la saaro dameer muxuu ka faa'iidin oo ka ogyahay waxa ku sugan waxba kama oga sidaasay la mid noqdeen yahuudi marka bal ilaahay wuxuu tilmaamay inay xayawaanka ka liitaan ulaa'ika kalancaami bal hum adallu ilaahay xoolahay la mid yihiin markaasuu ilahay waa ka liitaan xoola sababtoo ah dameerka iyo xoolaha caqli ilaahay weynaa ma siin sidaa darteeda mukallafiin maaha laakiin ayaga caqliga ilaahay siiyey mukallafiinay ahaayeen caqligoodii ayay marka ayagu dayiceen sidaa darteeda xoolaha hataa waa ka liitaan way ka liitaan ilaah wuxuu yidhi subxaana bi'sa waxaa balaayo lahaaday mathalulqowmi qoom tilmaantood aladiina qoomka kadabuu beeniyey biaayaati illaahi waxay leeyihiin maal oo xun xayle dameera lagu shabahay marka maal xun ayay leeyihiin wallaahu allena laa yahdii ma hanuuniyo alqowma qoomka aldaalimiina gardaran ee mushrikiinta ah ilaahay ma hanuuniyo marka daalimiinta alla ma hanuuniyo waxay la mid tahay aayadda habeenka dhigan soo sharxana suuratu lmunaafiquun oo waxa weeyaan laba jawaabooda laga bixin ilaa waxaa la ogsoon yahay dad gaalo ahaayo daalimiin ahaayo alla hanuuniyo saasaa la ogsoon yahay
qul liladiina kafaruu in yantahuu yukfir lahum maa qad salaf mu'miniintii soo islaamay xataa maxaa lagu yidhi kadalika kuntum min qablu famana allahu calaykum marka macnaheeda laba macno ayaa looga jawaabin sidaan soo sheegnay casharkii hore waxa weeyaan in la yidhaahdo intay dulmiga ku sugan yihiin intay dulmiga ku sugan yihiin ilaahay ma hanuuninayo qofku waxa weeyaan marka uu go'aansado inuu dulmiga ka tago ayaa ilaahay hanuuninaya laakiin dulmigiisi intuu xambaarsan yahay maya macnaha labaadna waxa weeye aayaddu waa caamun maqsuus waa caam laakiin waa la qaas yeelo aayaadka kaloo tusaya dadka qayb ka midu inay islaamayaan oo hanuunayaan ayaa khasisaya waxaana lagu gaar yeelayaa qolada aan alla hanuuninayn kuwa cindallaahi ay uga qorantay inay ashiqa yihiin ama ahlu naar inay yihiin oo aysan hanuunayn qul waxaa tidhaa nabiyo yaa ayuha aladiina dadka haaduu yahuudoobayow in zacamtum haddaad ku andacooteen annakum idinka awliyaau kuwa u dhow inaad tihiin lilaahi allah alweliyu weliga waxaa la yidhahdaa alqariib almuxibu annasiir wilaayada waxa weeyaan almaxabatu waannusra waa jacaylka iyo dhowaanshaha iyo gargaarka la yidhahdaa wilaaye marka awliyaaullahi marka la leeyahay waa dadka alle u dhow ee alla jecel ee ilaahay u gargaaro weeye kuwaas weeye marka haddaad tihiin kuwa alle u dhow min duuninnaasi dadka ka sokayna aad u dhowdihiin ku tacalluji ama ka xaaleeya waxaad tidhaa annakum idinka awliyaau kuwa u dhow haddaad tihiin lilaahi allah min duuninnaasi dadka ka sokay xaala awliyadaasu tahay fatamanaw jeclaada almowta geeri in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaya yahuudda waxay ku andacoodaanoo yidhaahdaan naxnu abnaa'ullaahi wa axibbaa'uh annagu carruurtii allaa nahay oo alla jeclaa waxay yidhaahdeen lan yadkhula aljanna ilaa man kaana huudan janno geli maayo qofaan yahuud ahayn marka nabiga sala allahu calayh wasalam waxaa rabbi amrayaa mubaahala inuu la galo mubaahalada macnaheeda waxay tahay inta laysku yimaado in la yidhaahdo aan habaarno annaga iyo idinka qolada gardaran waxay timaadaa marka xujo laysku qanci waayo marka hore asalku waxay tahay xujaj in laysku qanciyo iyo adillo marka adillada ay waxa weeyaan dawadii lagu qaada diido waxa ugu dambeeya waxay tahay in la yidhaha mubaahala aan wada galno waxa weeyaan annaga iyo idinka qolada lunsan ilaahay inuu ciqaab ku soo dedejiyo degdega oo nafta iyo maalka iyo waxa dhan ka baabi'iya waa meesha ugu dambayda nabigana sala allahu calay wasalam yahuudda waa la amray nasaarada kale sidoo kale waa lagu yidhi faman xaajaka fiihi min bacdi maa jaa'aka min alcilm faqul tacaaluu nadcu abnaa'ana wa abnaa'akum wa nisaa'ana wa nisaa'akum wa anfusana wa anfusakum uma nabtahil fanajcal lacnat allaahi cala alkaadibiin waa sidaasaa lagu amray suuratu alcimraan ugu tegi doonaa waxa weeyaan xaqu markuu caddaado oo xujada la sharaxo kadib qofka diida ee dood iyo muran ka keena waxaad tidhaahdaan kaalaya aan u yeeranno carruurteen u yeerta kuwiinna kuwa yagaan u yeeranaynaa dumarkiinna u yeerta kuweennaan u yeeranaynaa nafteenna waa keenaynaa naftiinna keena kadibna allaan u tadarrucaynaa waxaan habaaraynaa qolada annaga iyo idinka kaadibiinta waa awoodi waaye aayaddaanu marka waa ibtihaal wey mowt jeclaada marka macnaheed inaad dhimataan jeclaada maaha laga hadlima macnaha aayadda macnahay kaa loogu fiirsa macnaheeda waxa weeye ma sheegateen inaad ilaahay u dhowdihiin ood idinka jannada iska leedihiin khalaas isku kaana keena waxaan leenahay yahuudey annaga iyo idinka qolada baadiyaysan ilahay nafta ha ka qaado ha dhendhinteen intaasaan leenahay kaalay soma idinku iskuma kalsoonid inaad toosan tihiin khalaas aan ilaahay u tadarrucno kaalay inta isku nimaadno aan idhaahno ilaahayo waxaan ku weydiisanaynaa labadeenni qaybood waana kaneen annaga iyo yahuud qolada lunsan ilaahu nafta hadda ka qaad waa diideen weligood xataa yeeli maayaan waxay leeyiin war mubaahalana kula geli mayna naga maxayna waa og yihiin ayagu qolada lunsan inay yihiin markaanay leeyihin naxnu abnaaullahi wa axibaahu waa kidbi markay leeyihiin lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan waa kidbi waa been waxba kama jiraan waa og yihiin weligood ma yeeli karaan maalin sooma bixin mushrikiinta sidoo kaleeto ayaa iyagana waxa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam uu waxa weeyaan ibtihaalka loo amray qul man kaana fi dalaalati falyamdud lahu raxmaanu madda ay noogu imaan doontaa sidaas darteeda nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam abujahl waa nagii soo marray inuu yidhi maxamed oo sujuudsan haddaan arto halkaasaan kaga istaaga nabigu marka waxaasoo dhan uu ka warramay wuxuu yidhi abujahl hadduu isku dayi lahaa anoo sujuudsan inuu halka iiga istaago
malaa'igtaa qaba lahayd cayaana iyadoo loo jeedo ay cadcad u qaba lahayd sidaasoo kaleeto yahuuddu hadday oggolaa lahaayeen inay mowt tamaniyaan oo yidhaahdaan annaga iyo maxamed qolada baadiyaysan ilaahay ow halaag isla saacaddaasay dhima lahayn markaasay arki lahayen makaankay naarta ku leeyihiin isla saacaddanta naftu ka dhacdo ayay arki lahaayeen booska ay naarta ku leeyihiin qoladii waxa weye nasaarada sidaasoo kale ee suuratu al-cimraan aan ugu tegi doonno hadday mubaahalada aqbali lahaayeen oo ay yidhaahdaan hayaan isku nimaadno naf iyo maal ilaahay inuu dhaafiyo qoladeenna labadeenna qolada qaldan mar alla markay laabtaan hal qofku ehelkoodii iyo maal midna uma tagin iyagoo baabay u tegi lahay say darteeda qolo ku dhiirata waa la waayay soo ma jeedid marka mubaahaladu waa cilaajka ugu dambeeya wey waa dawada iyo meesha ugu dambayda waxa weeyaan qoladee baadiyaysan ilaahay inuu ummadda uga raaxeeyo waa loo baahan yahay isku soo kaana saara haddii xujaj laysku qancin waayey ilaahay qolada baadiyaysan ummadda inuuga raaxeeyo yahuudu marna kuma dhiiri karo mana awood macnaha laga hadlaba macnaha oo yahuud ay ogolaada inaan idhaahno anna nebi moxamed sala allahu calayh wasalam iyo idinka qolada baadiyaysan ilahay nafta ha ka qaado way diideen dhihi mayna yidhah marka nafta in alla ka qada waxay u diidaan soo ma jeedin waxaysan isku kalsoonayn inay xaq ku sugan yihiin xataa ilaah wuxuu ihi subxaana qul dhe nabiyow mubaahalo ugu yeer yaa ayuha aladiina kuwa haaduu yahuudoobayow oo diintii yahuudiyada qaatayow saasaa loola jeedaa in zacamtum haddaad ku andacooteen waa zacmi waa kadib waa madiyatu lkadib maaha wax xaqiiqa leh haddaad ku andacooteen annakum idinka awliyaau kuwa u dhow inaatiin lilaahi allah min duuni nnaasi dadka ka soka inaad u dhowdihiin fatamanow jeclaysta almowta geeri inay dhintaan qolada baadiyaysan jeclaysta aan idhaahno ilaahu qolada qaldan nafta ka qaad intaas jeclaysta in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa ka run sheegaya marka aad leedihiin awliye allahna haddaad run ka sheegaydaan ood isku kalsoon tihiin aan habaarno qolada lunsan ood aaminsantihiin annagu inaan lunsannahay ilaah wuxuu idhi subxaana walaa yatamanawnahu mowdka ma jeclaanayaan abaddan weligood kuma dhiiri karaan mowdna ma jeclaanayaan adduunyada mowd waxaa ugu necab yahuudda ugu necab suurat lbaqara nugu tegi doonnahay walan yatamanawhu abadan bima qadamat aydihim wallahu caliimun biaalimiina walatajidannahum axrasa annaasi cala alxayaa walatajidannahum axrasa annaasi calaa xayaatin wa min aladiina ashrakuu yawaddu axaduhum low yucamaru alfa sana halka yahuuda wuxuu jecel yahay inuu 1000 sano noolaado ka war yahuud wuxuu jecel yahay 1000 sano inuu noolaado hayay inta naftu ka dhacayda naarta ka xigta inta naftu ka dhacayda naarta ka xigta marka wuxuu isleeyahay cabaar dib uga dhac ma ogola inuu rumeeyo ina yahuudu xaqa waqtigeena waxaad ku dareemaysaa fiiri qaar kamida waliba nabiga waqtigiisa joogay salawaatullaahi wasalaamu calayh nabiga sallallahu alayhi wasallam wiil yahuud ah oo u khidmayn jiray oo shaqayn jiray ayaa sakaraat mawt u yimid gurigii aabbiisa isagoo jooga nabigu u tagu soo boqday yahuudkii oo dhimanaya soo boqday nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam markaasuu yiri qul la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah wa islaam wiilka aabbiisu fiiri adoon intuu noolaa ka caysanayay oo wuxuu lahaa raaci ku baadiyay bidcadiisa iska ilaali soo ma jeed intuu noolaa asaga ka hortaagna hadda wiilkii nafteeda ka socoto u jeeda hadday naftu ka dhacdana naarta wada ka taga waa ogyahay odagaan muxuu ku yiri wiilkii odagii markuu fiiriyay odagii wuxuu yidhi adiic abalqaasim warkiisa yeen si uu balnaanta uga badbaado ilaa hadda kadib xuma gala tegay laa ilaaha illa allah wiilkii yiri waana dhid laa ilaaha illa allah muhammadur rasuulullah unta wiilkii yiri nafta ka dhacdo nabigu wuxuu baxay sawal alhamdulillahi alladhi anqadahu min an-nar alhamdulillahi alladhi anqadahu bi min an-nar allah adaa mahad iskale aniga sabtay naar uga badbaadi soo ma jeedi marka waxa weyn tii uu dareemayaa in waxa weeyaan wiilkan dalaal ku sugay ee maabihiisa haduu aaminsan yahay nabigu inuu lunsan yahay oo dariiq naar dadka ugu yeerayo ma dhihi laha adiic abalqaasim ma dhiheen marka way ogyihiin ilaahu wuxuu subhanahu wala yatamannawnahu mawdka jeclaysamayaan abadan warigood bima kiisaytiisa aysan la jeclaysaneen qadamad ay hormarsadeen ay diin gacmahooda marka been iyo turufo weeye marka ilaahay xaqan ku sugan ee way ogyihiin inay lusayiin wallahu alla aliimuna saga wa qoon badan bil zaalimiina kuwa gardaran qul lin nabiga subhanahu innal mawta garida alladhi mawtka tafiruna minhu at'araraysan fa innahu mawtku mulaqiikum wa midka in la kulmaya ana dadaala waxa weyn ama orda waxa tiraahdan mishina wadnaha lagu xiro sambaha la afuufo waxa nafka ku celini waxa arkayda boqor heel aad maqleeda isbitaal heel la dhigo mishina lagu xiro wali naftu waa ku jirta waa dhaqaaqa wadniga inta waxa lagu xiraa la kilkila malaayiina jaf intaas looga siisana markii laga furay eer qabta ka dhacdo bal fiir waxaas
waxaas waqti la iskaga lumiya maaha waa naf jacayl meesha ugu dambeeyey haddaad 24 saac wadnaha aad mishiin ku xirto ama aad sanbadaha ka afuurto waa dhaca naf ma la celi karo marka mishiinada inta malaayiinta aad ku baxaydo ilaahay daacadiisa u hormarsay isdiyaari waxaas nafku u celimayda silcahu ilaahay subhanahu thumma turadduna wala lil'ilmiya mawt wala gamarma sidaas darteeda qofka intuu ka fakari lahaa mawtka saad uga fakata waxa weeyaan hasheeg halkana hebelayin hal istaweeyo laakiin waqtigaado dhan iyo muhiimadaadu yahay noqon mawt iska ilaali waxa weeyaan hal istaweeyo hada xanuunsan tahay khalaas laakiin shayga muhiimka waa maxay laazim waa la kulmay u diyaar garow shayga muhiimka waa maxay laazim waa la kulmay shayga marka muhiimada koobaad waxaad sida inaad alle la kulmaydo inaad u suubato qof ilaahay la kulma oo ilaahay raali ka yahay taas guudiga ku bixi intaan kale xoogaa gacanta bidix iska ahaato isdawdawe iska dadadaal ilaahay baa ku ogolaaday nabigu waa amray sallallahu alayhi wasallam leeyahay laakiin muhiimada ha ka dhigin inaad ka wareegsato mawdka ha ka dhigin taas waxa weeyaan waa mustaxiil waa la hubaa waa mustaxiil wax dhacaya ma in mawdka iyo adigu aad seegtaan ثم تردون كذب وحلين علينا إلى عالم الغيب والشهادة إلى عالم الغيب وحا الضوامة كم مقن الله أوغا إيا والشهادة وحا الضوامة نوغضة لبضة وحا سيقع الله كم مقن مجرين غيب كالقول شيء الضوامة يقيفين الله وحكا قيب مجرين لبضة الله أوغا فينبئكم كذب نوحو إذن كذا والرمي بما وحي كنتم على هذا تعمل لكم عمل فلم أنا دوام محي الله هدوكم حسابنا إياه والله وحكا استبع oo wax ka qarsoon jirin wixii dadka dhexdooda aad ku sameeyay iyo wixii meel cid la aad ku sameeyay alle oga ku xisaabinaa way saastarkeeda marka dadka la joogtiyo marka ka maqan tahay isku si ilaahay waa baq subhanahu wa ta'ala ya ayyuha alladhina dadka aamanu haqqahum yaro idan nudiya marka loo dhawaaqo lis-salati li ajli salati salada darteed min yawmil jumu'ati maalinta jum'aha qaala ay ahaatay salaadaasu fas'aw sa'da ila dhikrillah ilaahi xuskiisa sa'da wadaru kataga albay'a ganacsiga kataga dalikum katagidaas akhayru lakum min khayr badan in kuntum hadatihin تعلمون كوا وحكلا فإذا قضيت الصلاة صلاة مركا لدميو فانتشروا فافا في الأرض دولك كوكي سكو فافا وابتقوا الرادية من فضل الله إلهي الفضل كيس وحكا من الرادية واذكروا الله أولا حس انت بقنع سنيسان ذكرا حس كاسو كثيرا فربضا لعلكم تفلحون لكي تفلحون إن الليبانتان دكتبنا إلهي حسا آيات إلهي وحو واجب وقدق المؤمنين إن مركا صلاة لأدمة جمعة أي سوء آذان ضدك خطبة واجب إلهي وقدق واجب أي إلهي وقدق مركا صلاة لأدمة إن سوء آذان وشي واجب معنى الجمعة ومالين وين وإلهي المسلمين تكون تفضل سبحانه وتعالى وعيد أسبوعا maalinkaas waa maalintii ay dhamaatay makhluuqa abuuristiisa 6 maalmood ee ilaahay makhluuqa abuuray axaday ka bilaabataa jumcayna ku dhamaatay waa maalinkii makhluuqa abuuristiisa la dhameeyay waana maalinkii nabiyullaahi aadam ilaahay uu abuuray waana maalinkii nabiyullaahi aadam ilaahay jannada geliyay waana maalinkii nabiyullaahi aadam jannada laga soo saaray waana maalinka qiyaamuhu dhaca waa jumco waxa ku jirta nabigu sallallahu alayhi wasallam sidoo sheegay saacad leeyra saacatul ijaaba oo qofka ilaahay asagoo baryaya saacadaas ku soo aada ilaahay uu siiyo saacadaas wax alla wax ilaahay weydiisto qofka muslimka ee ku soo aada waa qof muumin ah laga hadlaya oo ilaahay rumaysan waxa weeyaan ee qayr weydiisana ilaahay waa siina ahadiis saxiixa intaas oo dhan ku sugan sidoo ilaahay xaafid ibn kathir maalinkaas marka waa maalin fadli badan nabigeena subhanahu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalinkaas ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu ka baadiyay in alla intii naga horreeday yahuud waa la amray waa diideen waxay qaateen ay ka dhigteen ciidoodii sabti ahad waa nimanka la yiraahdo waxa qaatay nasaara ahad ay qaateen ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala annagu noo keenay nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahi baa nagu hanuuniyay markaas ayaa ciiduhu waxa uu kala horeeyaan sidaan ciiduhu sidaana uu kala horeeyaan yawmul jumu'ah والسبت والأحد وانا سيدة دينه كليهين دينية سيدة اسكالا دين الإسلام كاي حقا ومالك الجمعة عيد دي أسبوع سبتية هي أحد لبدا كفار وحوين يهودية النصارى أفايستية
ayagaa faysteeya qof kasta oo muumina uma banaano inuu faysto u aqoonsado labadaas maalmood qofka muuminka waajib waxaa ku ah inuu maalinta sabdiga maalin shaqo caadi u aqoonsado axadana maalin shaqo oo caadi ah maalinta oo waxa weeyaan jumcadana waa ciidii muslimiinta waana la shaqaysan karaa waa arki doona in la shaqaysan karo allah amraada ma aha macnaheedu qofka jumcada shaqaysta inuu yahay qof oo adduunyadu ka qaalib noqoto waa la shaqaysaa waajibkana waa la gudaa waaba arki doonaa soo ma jeedid laakiin waa laazim maalinkaasu maalinta ciidda muslimiinta ee inay tahay faysada maalinta ciidda muslimiintu leeyahay labada maalmood kalena inay xaaraanta in loo aqoonsado ciid ama se waxa weeye ilaa waa diin wax ku saabsan wax caada ma aha shayga caadada ma iska daa diinka caadada gaala u gooniya xaaraan way lagu shabaho shayga caadada ama dhaqanka ee gaar u ah gaalada xaaraan way in la iskaga ekaysiiyo maxaad u malaynayaa shay diin ah oo gaala u gooniya oo diin gaalaad ah in lagu shabaho oo la yiraahdo ciidda ha laga dhigo ama maalinta faysada laga nasto shaqooyinka ha laga dhigo sabti in la yiraahdo soo ma jeedid waa dalaale nabiga marka wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam arinta waxa ka imaanayo yiri marka ayagoo naga horeeyay maalinkan ka lumeen ilaahay annagu la waafajiyay soo ma ahan nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam nahnu al-akhiruna min ahli dunya ummadaha adduunyada ummadda ugu dambeeydaana wal awwaluna yawm al-qiyamah al-maqdi baynahum qabla al-khalaa'iq maalinta qiyaamaha annaga ugu horeynan ummadaha annaga nala kala xukmina ummadaha kale waa naga dambeeya taasuna waa fadl ilaahi maalinta qiyaamaha ayadoo maxsharka la taagay ummatu maxamed alla xukmina marka fadiiladaas weyn waxa la rabaa qofka muslimka inuu ugu xisaabtamo oo maalinkaas ilaahay ugu caabudo sidaas darteeda maalinkaas ilaahay ku waajibiyay mu'miniintu inay waxa weeyaan maalintaas jumcada tukadaan yaa ayyuhalladina dadka aamanu xaqa rumeeyeenoo idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati liajli salaada darteed min yowmi ljumucati xaalay tahay minta bayaaniya laga dhigin lisalaati laga xaalay ee waxba bimacna fiil laga dhigin maa min yowmi ljumucati maalinta jumcada xaalay tahay salaadaasu marka loo dhawaaqo salaadihii kale laga hadli maa fascow soo aada ilaa dikri illahi ilahay xuskiisa fascow orda maaha mamnuuc wey in loo soo ordaa salaada waaba xaaraanba in salaada loo soo ordaa soo aada wey xagga dikriga alle soo aada wey xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi waxa weeyaan macnaheeda halkan loolama jeedo soo degdega ee waxaa loola jeedaa sacyigu waa kii camalka ahaa qalbi wey xagga qalbi ahaan waqtigaas jumcada la gaaro waa inaad ihtimaam iyo ka murgid iyo muhiimad qalbiga ka siido oo aad u soo diyaargarowdo oo aad u soo shaqaydo oo aad soo aado jumcada sidaas ayaa laga hadlaya waxayna ku macno tahay uu yiri waman araada al-aakhirata wa sa'a laha sa'yaha qofka aakhira doonaya ee u sacya ee u orda loola jeedo aakhirada orod ma fadhi waa lagu caabudo ilaahay soo ma jeedid qofka u shaqeeyo weey soo ma aha taana waa sidaas oo kale waxa loola jeedaa mar haddii salaada la adimay u soo shaqeeyo inaad soo aadaan oo soo xaadirtaan saasa laga hadlaa ama orod taas de shariicada islaamku waa diidayba nabigeena sallallahu alayhi wasallam salaad in loo soo ordo waa diidayba xadiiska bukhari muslim min xadiis abi hurayra nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri ida sami'tumul iqama famshu ila salati aqinka markaad maqashaan salaada u soo socda oo soo aada wa alaykum as-sakinata wal waqaa waxaad laasimtaan xasilooni iyo deganaan waa la aqimay bal waa rukuuca imaamka irida soo marayda gow lama ogola mamnuuc wey lama ogola dadka gabal waxa way soo dayn gow markaas xataa dadka shaqeynaya masaajidka gabalka xaa ka dhacay dhibaatada ka jirta maxay tahay nabigeena subhan sallallahu alayhi wasallam wuu maqal abi qataada wuxuu yiraahdaa tukayna nabigu maqlay shanqar markuu salaadii ka baxay ayuu nabigu yiri ma sha'nuku war maxay ku dhacay markaas ay rabeen istacjaba ila salaadan soo degdegayna rasuulka allah nabigu wuxuu yiri fala tafcalu mardan hayeelinina ترتيب سو صعده هيلمنا اذا اتيتم الصلاه فامشوا وعليكم السكينه وحويان marka salaada soo aadaysan waxaweyaan soo socda xasilooni adoo degan qofka salaad u socda qof salaad ku jiro la jirigi marka qof salaad ku jira ma orda ha ordinina soo ma jeedid fama adraktum fasallu wama fatakum fatimu wixii aad soo gaartaan imaamka la tukada wixii in dhaafayna dib kala imaada saas weey قالوا حتى قليا وهلكاس ان الله مع الصابرين امام كل الله ورسوله يسبب وحسوا ظلم وحسوا جهل
waxa weeyaan hadday laba tilaabo kuu jirto ha ordi ha salaadii waa la aqimay bal waa rukuucay imaamkii iridaad soo marayda waxba ha soo ordi salaad adoo ku jiraad la jiragta iska soo soco haddaad ka meeshaad uga soo gaarto qaar badan oo salaada markay soo gaaraan haddii rukuucda madaxa la qaado khalaas halku istaagnaana ilaa laga soo istaago yaa ku yidhi halkaa la istaagnaada meesha imaamku marayaa looga xirtaa soo ma jeedin meel alla meesha hadduu rukuucsan yahay ku xiro hadduu ictidaalsan yahay ku xiro hadduu sujuudsan yahay ku xiro yaa kuu baneey inaad taagnaato see u taagnaanay meel alla meesha aad ka soo gaarto kaga xiro soo ma jeedin laakiin ragcada goormaa tirsanee waxaa tirsanee rukuucda markaad ku soo gaarto khalaas inta kale tirsan maydi isagoo ictidaalaad soo gaartay tirsan maydi isagoo sujuudsanaad soo gaartay tirsan maydi laakiin rukuucda mar haddaad soo gaarto shaki male waa markaas shaki male waa tirsanaysaa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam waxa weeye nin saxaabigaa sidaasayba ku dhacdayba oo waxa weye inta soo dadaalayuu rukuucda ka soo gaaray salaada markii laga baxaa nabigu hadlo uu yidhi kumuha ninka same waa anigu yidhi marka nabigu wuxuu yidhi zaadaka allahu xirsan walaa tacud ilaahay dadaal ha kuu siyaadiya ha u laaban dee ragca hadday maqanta hor istaagu dhihila alla ha u laaban maxaa la yidhahda waqtigiyaa la joogaa ha u laaban ma dheheen istaagu dhihila nabigu sala allahu alay wasalam waa kii cabdullahi ibn mascuud iyo nin kale soo raacay rukuucday ku soo gaareen salaadii marka laga salaamsada ninkii kale isaga cabdullahi waa ku dhegay gacanta markaasuu jiiday fariiso waa dhammayday salaadii marka salaadaada ragcay siyaabaha ku darin rukuucda haddaad ku soo gaarto khalaas ragcadaas waa ku jirtaa mid kale ha iskaga darin in salaadu kaa burin marka waa nooca salaada marka waa in la soo socdo orodka iyo qaylada iyo buuqa waa in la iska daayo yaa ayuha aladiina dadka aamanuu xaqa rumeeyeeno idaa nuudiya marka loo dhawaaqo lisalaati liajli salaa salaada darteed marka loo dhawaaqo loo adimo min yowmi ljumcati xaalay tahay adinkaas waa kuba marka adinkaas waa adinkee adinkaas waxa weeye la sheegayaa waa adinka marka khatiibku ku fadhiisto kursiga adinka la adimo wey adinkan oo la leeyahay marka salaada jumca loo adimo waa midka marka kursiga uu ku fadhiisto khatiibku la adimo wey kaas wey ama intii ka horayda inta ka horayda inaad timaadda waa sunno axaadiis saxiixa caddaynaysa oo nabiga sala allahu calayh wasalam khadiibka 5 qaybooduu ka dhigay wakhtiga ka horreeya saacadda ugu horreeya ninka yimaada inta soo dahaaro qaata asagoo neefkeeda sadaqayu la ajara yuu yidhi nabigu sala allahu calayh wasalam saacadda ku xigta qofka yimaada neef lo asagoo sadaqayu la midi saacadda saddexaad qofka yimaada waxa weeyaan wan asagoo sadaqeeyey ayuu la mid yahay nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi saacadda afraad qofka yimaada asagoo digaagad sadaqayu la midi qofka saacadda shanaad yimaadaana ukun asagoo sadaqaysu la mid shanaad haddii la dhaafo khadiibku soo galo malaa'igtii albaabada joogtay dadka qorayda buugaagta waa laabataa waxayna soo xaadiraan si ay khudbada u dhegaystaan wax ku qorayba lama arkaba gaad ku qoranta wax ku qorayaba male malaa'igtii waxa weeyaan way laaba warqadaheena khudbaday dhinac ka dhegaysanayaan khudbaday dhinac ka dhegaysanayaan waqtigaas kadib qofka laakiin inaad timaada waajibay kugu tahay soo ma jeedi waajibay kugu tahay inaad timaado oo aad soo xaadirto mar walba marka adinkuna waa midkaas adinkaas inuu yahay khilaaf male waa adinkaas sababtoo ah waqtigii nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam adinka jiray wuxuu ahaa adinka khadiibku markuu mimbarka ku fadhiista la adimo kaasuu ahaa sida saxiix albukhaari ku taalla waxa weeyaan nabiga sala allahu calayh wasalam waqtigiisii marka uu ku fadhiisto kursiga adinku kaasuu ahaa waqtigii abuubakarna kaasuu ahaa waqtigii cumarna kaasuu ahaa waqtigii cuhmaan ayaa dadkii bateen way bateen markay bateen oo dadki magaaladii ballaaratay adinkii ma maqli karaan uu isiiyo markaasu wuxuu amray guri dheer oo magaalada madiine ugu dheeraad oo la dhihi jiray zawraa in korkeeda laga adimo maaha masaajidka maaha masaajidka gurigaas korkiisa in laga adimo saasuu amray si dadkii maadaamay fog yihiin ay u maqlaan oo u soo diyaargaroobaan oo u soo aadaan saxaabada badankoodu ma aysan ku ceebayn cabdullahi ibn cumar marka laga reebo cabdullahi ibn cumar waa inkira oo wuxuu yidhi waa bidca wa kullu bidcatin dalaal yidhi asagu sanad saxiixay uga suganta inuu yidhi waa bidca dhammaanteedna waa dalaal fatxulbaariga ibnu rajab ka eeg sidaasoo kaleeto waxa weli ibnu abi shaybana 5441 raqamka uu ku wariyo afarkaas inuu cabdullahi isagu inta naafica la weydiiyo ka warramaa la yidhi adinkan hore wuxuu yidhi cabdullahi ibn cumar wuxuu yidhi waa bidca kullu bidcatin waa dalaal saasuu yidhi laakiin in badanoo saxaabadan kale ka mid ah wax inkiray ma aan hayno marka laga reebo cabdullahi ibn cumar calaa kulli xaal
imaamuna shaafici wuxuu yidhaahdaa kitaabkiisa umka ah wuxuu yidhaahdaa juska koobaad safxada 215 wa uxibu an yakuuna aladaanu yowma aljumucati xiina yadkhulu alimaamu almasjida wayajlisu calaa mawdici aniga kollayba waxaan jeclahay in adinka jumcadu noqdo marka imaamku masjidka soo galo oo uu ku fadhiisto mimbarkiisa anugu saasaan jeclahay maadaama ay tahay waxaan nahayd waa maxay sidii nabigu ogaa sallallahu alayhi wasallam sidii Abu Bakar waqtigiisii sidii Umar haddana waliba Ali ibn Abi Talib lafkiisu Kuufa markuu joogay halkaas adduun waa asna laazimi jiray oo midkan hore lama imaan jirin marka sidaas ayaan jeclahay uu leeyahay imaamuna Shaafici kitaabkiisa umka waa dabcada daarul fikri على كل حال أئمة وحي يراهدان أهل العلم قار كميد سيدا فاعن وحي طهي ميشان مكبر الصوت كلام معناها سماعها ووين له الذي عثمان بن عفان وأدن كاس أساسيادي ماذا الله باهنا بهدي الله هي مكروفنا ذا سببته أفيرية إلا وإلا فيرية إلا هدادا إلا وفيرين لا عثمان ما موافقين ولا نبينا موافقين عثمان علمه فيري oo maxay ma jirin samaacadaha waaweyn magaaladuna way balaarat dadku ma maqli karaan marka uu siiri sidaas darteedu adinkan uu jiday soo ma jeedid si dadku maqlaan meeshii marka ciladiyo kale ka jirto waa tuuro male samaacada waaweyn tuuladiina waa weynta dadkii maqli mayaan adinkaas oo kale hadii qofku dariiqadii Uthman qaato waxa weyn falaaciga calay laguma ceebayn karo laakiin magaaladan weyn سماعدو ku rakiban yihiin dariiq kasta oo qofku maqlayo uu maqlayo adinka dariiq kasta oo maqlayo oo san markaliya maqlayo ee uu meel kasta ka maqlayo hada markaas ciladii uu Uthman fiiriyay ma taalo wana laasim in xukunka ciladiisa la fiiriyo laana al-hukm yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama xukunku ciladu raaca markii ciladii la helo waa xukunka in la helo